qaaligaa soo dhawaada meel kasta joogtaan. Waa Jaamac Difaac oo maanta barnaamij kale inoo wada. Barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay sideebaa qofka dhalinyarada ahi nolosha u noqon karaa mid guul ka gaadha amba u gaadha hadafyada aasaasiga ah ee qofku nolosha, sida inuu waxbarasho dhameeyo, inuu jaamacad dhameeyo, inuu shaqo helo, inuu qof financially noqdo qof isku filan, inuu noqdo qof macnaha bulshada dhexdeeda laga ixtiraamo oo ah qof kaalintii laga rabay ka soo baxay. Wax kastoo nolosha aasaas u ah, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan qofku marka hore inuu leeyahay han iyo higsi mustaqbalka ah oo uu doonayo qofku inuu meel sare nolosha ka gaadho, oo uu doonayo qofku inuu macnaha waxyaabo waaweyn uu nolosha ka gaadho oo hadafyo uu ka leeyahay. Marka aasaaska koowaad ee qofka ka dhigaya mid ku guuleysta nolosha waxaa number one u ah qofku inuu leeyahay hadaf amba goals wax loo yiraahdo. Goalskaas oo u kala baxa dhowr, inuu qofku leeyahay personal goals kuwo shakhsiyan u saameynaya, hadday tahay nolosha finance-ka maaliyadda, hadday tahay shaqadiisa, hadday tahay waxyaabaha la xiriira. Inuu leeyahay qofku self development goals oo ah qofku inuu noloshiisa uu noqdo qof mar walba wax baranaya, hadday tahay waxbarasho formal ah iyo hadday tahay waxbarasho self study ah oo qofku uu siyaabo kale courses ay tahay uu ku samaysan karo. Marka hadafku amba goalku waa waxa ugu muhiimsan ee qofka aan odhan karo wuxuu ka dhigi karaa qof caadiya intuu ka qaado ayuu qof extraordinary ka dhigi karaa. Waxa weeye inuu qofkaas hadaf samaysto. Haddaba hadafku muxuu yahay amba sideebaa hadaf loo samaystaa? Hadafku waxa loo samaystaa in aad waa tool aad doonaysid inaad ku gaadhid ujeedo amba higsi aad leedahay mustaqbalka. Tusaale ahaan waxaad odhan kartaa waxaan doonayaa 2025 bisha December in aan $20,000 bangigaygaas ay ku jirto oo aan save gareeyo. Waa hadaf cad oo specific ah. hadafkaas sidii aad ku gaadhi lahayd marka waa inaad iyadana aad qorshaheeda samaysaa. Haddaba sidii hadafka loo samayn lahaa ayaa muhiim ah. Muxuu hadafku si uu u noqdo mid successful ah ay tahay inuu ka koobnaado? Hadafkaagu si uu u noqdo mid successful ah wuxuu u baahan yahay inuu ka koobnaado qodobadan aan halkan ku sheegi doono oo loo soo gaabiyo SMART. SMART. S waxay u taagan tahay hadafkaagu waa inuu specific noqdo, waa inuu wax cayiman noqdo, aanu ahayn wax vague ama general wax guud oo aanu noqon. Aanad odhan waxaan doonayaa inaan lacag save garaysto, waa hadaf guud. Laakiin waxaad markaad tiraahdo waxaan doonayaa inaan $20,000 save gareeyo December 2025 bangigayga ay ku jirto amba 30,000 amba 50,000 waa specific amount. waa macnaha waa waxaad aad ku xisaabtami kartid. At the same time waa inuu noqdo measurable. M-ta waxay u taagan tahay SMART. M-ta waxa weeyaan inuu noqdo measurable. Maxaa lagu cabirayaa? Waa inaad tiraahdid bil walba $1,000 amba $500 amba $100 ayaan bangiga ku save gareynayaa. Waa measurable, waa wax la cabirayo. waa cabirkii maogta progresska ee kuu sheegaya macnaha inaad wixii gaadhaysid oo xaggeeda u socotid. Eedu waxay u taagan tahay achievable inuu yahay, oo hadafkan aad samaysatay ma yahay mid aad gaadhi karto, ma save gareyn kartaa $1,000 amba $500. waa inuu macnaha noqdo wax adigu aad achievable oo aad awoodid, si haddii aad hadaf kaa weyn intaad iska samaysato aad markaad awoodi weydo waad ka niyad jabaysaa. Marka waa inuu noqdo achievable ayay eeduna u taagan tahay. Art waxay u taagan tahay relevant ma yahay, wax ku tara oo dantaada yahay ma yahay waxaan aad bahalkeynaysaa. Marka artuna waxa weeye relevant. Let's say waxaad tiri $20,000 baan doonaya save gareeyo. maxaad tallaabooyinkii dee relevantka la mid ah? waa inaad shaqaysatid, waa inaad extra dee macnaha activities dheeraada si aad income-kaa u generate garaysid waa inaad la timaadid. Marka relevant waa inuu waxaasna uu noqdo. Ta u dambeysana waxa weeye T oo u dambeysa waxa weeye time bound. waa in waqti u qabatid. December 2025 ayaad qabsatay. Marka December 2025 waa inaad ku guuleysatid hadafka, oo marka aad bangigaaga eegtid waa inay lacagtaas ku jirtaa. marka smart goalsku
qaabkaas ayaa loo sameeyaa waa waxa la yihahdaa smart goals qaabkaasaana loo dejiyaa wuxuuna kaa caawinayaa inuu noqdo hadafkaagu mid successful ah aad baad mahadsantihin waxaan rajeynayaa inaad wax ka faa'iideen